maxkamad ku taalla waqooyiga Kano ayaa dacwad ku soo oogtay nin lagu eedeeyay inuu sameeyay isla markaasina uu baahiyay muuqaalkii been abuurka ahaa ee ku saabsanaa madaxweynaha waddanka Nigeria Muhammadu Buhari inuu xaas labaad guursaday. muuqaalkaasi ayaa muujinayay madaxweyne Buhari oo la aqal galaya wasiirka u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada Saacadiya Umar Faruq Kabaaru Maxamed waa ninka lagu soo eedeeyay inuu ka dambeeyay muuqaalka been abuurka ee ku saabsan arooska uu galay madaxweynaha dalka Nigeria ayaa la xidhay bishii January waxaana lagu soo oogay dacwad. dawladdu waxay sheegtay in ninkaasi uu qirtay inuu isagu sameeyay muuqaalkaasi. maxkamadduna waxay sheegtay in muuqaalkaasi uu waxyeello u geystay sumcadda madaxweynaha iyo dadkii lala xidhiidhiyay falkaasi been abuurka. waxaana la codsaday in maxkamaddu ninkani lagu magacaabo Kabaaru Maxamed loo diiday in lagu sii daayo damaanad isla markaasina la bilaabo baadhitaan ku aadan arrimahaasi si talooyin dhinaca sharciga looga raadsado wasaaradda cadaaladda ee gobolkaasi ku taala. balse maxkamadda ayaa diiday in damaanad ay ku sii dayso waxaana la filayaa in dhagaysiga dacwaddaasi loo haysto ay bilaabanto 5 bisha February ee sanadka 2021. sanadkii hore ayay ahayd markii baraha bulshada la isla dhex marayay waxa lagu sheegay arooska uu galay ama gabadha lagu magacaabo Saacadiya Faruq ee uu guursaday madaxweyne Buhari isla markaasina ka tirsanayd golihiisa wasiirada. Siciid Aadan Jaamac, telefishanka on cable. moogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai mobaylo, talaagado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtal sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab. markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa in eheladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama bas bilaash. wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333